madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta wuxuu u ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta halkaasi oo madaxweynuhu kula kulmi doono madaxda wadankaasi kadib martiqaad rasmi ah oo Imaaraadka Carabtu u fidiyeen hogaamiyaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo wafdu hogaaminayo madaxweynaha oo ka kooban wasiirro iyo xildhibaano ayaana maanta ka ambabaxay garoonka Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho waxyaabo ugu muhiimsan ee madaxweyne Farmaajo iyo mas'uuliyiinta Imaaraadku ay ka wada hadli doonaan ayaa waxa kamid ah in lagu tixgeliyo Soomaaliya go'aanka dhexdhexaadnimada ahaa ay ka qaadatay arrimihii qariidka fududeynta howlaha la xiriira socdaalka iyo dalku galka iyo waliba Imaaraadka Carabtu in si toos ah uga qayb galaan dagaalka al-shabaab lagu jiro madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa safarkan wuxuu noqonayaa safarkii labaad ee uu ambabaxo wadanka Imaaraadka Carabta tan iyo markii la dowladda Soomaaliya ayaa xilligaani wada dadaalo xoogan oo dalka looga xoreynayo al-shabaab gaar ahaan gobolada wadanka Soomaaliya ay ka taliyaan waxa jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socda gobolada wadanka Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya oo doonaya in wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya ay gacan buuxda ka siiyaan dowladda federaalka Soomaaliya la dagaalanka al-shabaab. Cabdiraxiin Cabdullaahi Honkabel TV magaalada Muqdisho.